سلق النبي عليه الصلاة والسلام أبواب خيرك إن قفك النبي سلقي سأبضي صلوات الله وسلامه عليه. النبي يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه به 10. هل مرقفك يصلي طبعا شير بإلهي يصلي يا النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن مركا معلنتي بقول شير شن بقول كن شير أنت تصلي إنك النبي يصلي صلى الله عليه وسلم حنقرنا يعني إن أضيه هذا واد أنت لون حريست النفط حنون كليره هذا قبي سنوات أضبط بقول عامي شير نفتي بقى لك كحيي صراحة نقول النفتي كل بتشرتي إلى مركي أنقان جاري إلى أنه نوين النفتي وقبي مددا بقى إلهي كحيي سبحانه وتعالى نفتي محا إلهي كحيي مكاسو قعنت إسواق بتقول كان لا كل شيء هذا روحوا إلى صلاة المغرب مركان تكذو إلى صلاة عشاء أنت ود حيسة عندنا الله ما الله ملبان فريستا كنت شرب النبي صلى عليه الصلاة والسلام مركاسا إله النفط إيجاك حيبان إلى هذا إلهي النفط وإيجاك حيب نين كان شيخ أتقانان صالح المغامسي اللي يراضو فاجك قبا إمامك كا واعظك شيخ فسرك وهذا يدوى لقلي اختار بالا دقي كلا اختار كعلوش على غير قلي اختار كبالا دقي مركز دريتي اللي سو سيحيي قفك توبوين بالا قليا ديقي يدعانك كسو سارة مركز وهريس لقلو توبوين كبا علوش كسو قادي وديقي يدعانك سيا كشاكيني أنك دقي استانو مركز هذا اختار كبا الله شيء dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegaan oo yiraahdeen tubooyinkii ma soo qaadayaan dhiig iyo wixii tarkii wuxuu yiri amaliyadii dib loogu celinaya wuxuu yiri gabadh kamid ahayd gabdhihii waarka ka shaqeynaysa dhakhtarka ka shaqeynaysa ba soo agmartay waxay tiri salli ala rasuul sallallahu alayhi wasallam baad rasuulka salligiisa badi nabiga aad ugu sallallahu alayhi wasallam wallahi marka iga tagtay buu yiri oo dhakhtarkii lagu maqnaa daqiiqadu iga soo raagay dhowr 10 daqiiqo 20 meeyo markii uu soo noqday mise tuubooyinkii saas u sii deynayaan dhicaankii dhiigii wixii baa wadaanba marka qofku ka sali badan yahay nabiga waa loo geenaya hebel rasuulka ilaahayow inta soo jeer buu kugu soo saliyay baa la dhahaya sallallahu alayhi wasallam soo ayaan darama aha 24 saac warkaaga la qaadinba oo nabiga ku sallallahu alayhi wasallam faa'ida laga helay waxa kamid nabigu tilmaamay man salla alayhi salatan waahida toban jeer baa la ku saliya wa huta anhu 10 khati'at toban dambina ilaahay waa kaga daadiya ورفعت له 10 درجات 8 درجة إلهي واسيا سبحانه وتعالى صومك كمد مالمه سكل دوان صومك سنها سدح بشي بسدح محمد إن لقى صومه رمضان تسون كذا أبواب تخير كمدا لحد عشاء شوال كمدا صومك عرفة كمدا يوم عاشوراء صوم كذا كمدا قفك صوم من أفورنتي سا كمدا هبين ليلة القدر كل كذا كمدا هبين كوتشرت صدقة أي واحد بحنته يديق ذا كمدا ورسول صلى الله عليه وسلم وحيورن شري الصدقة تطفئ الخطيئة صدقات قفك يدم يغفك دعوي دميسا كما تطفئ الماء النار صدبك بيه دمي يوكله أسماء مركو لها اللي وحكور يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك أسماء ويل كاغا ديقضي الصدقات يحبي حنتا ها كاف حدين يا إلهي ديقضي سكاف حدين سمعوا وحكومة ماذا نبا تشري تدير هذا فارح بين ترصدي فارح بين ترصدي ما غانا مشكلة سمغشانه ملاذا meelaha Soomaaliga waa ku ciriir baan u maleynayaa ninkaasi xogaa lacag uu shaqaysta fiican calculator buu soo qaatay xisaab uu isku dhufsaday wuxuu yiri maxaa noolaan kartaa 70 sanadood baad noolaan kartaa خلاص 70 kaaga sanadood intan waa kugu filan yareeyso dheeligaagi foodkaaga waa kugu filan yareeyso intiisi isku farsamaystay 70 kiina waa dhamaaday lacagtina waa dhamaatay wiilna waa nooli qof uu waxsiiyeen hadii ma jirto waa nin la isla yaqaan buu ahaa maalinta dambe aqalada albaabkooda garaaci jirayo kub markuu soo laga waa kuma waa faarax been tirsaday waxay dhiib u dhijir waniga beenta tirsaday muujeeda mid kalena waxa la oran jiray hebel friend baa la oran jiray wadamadaas gaaladu ku korayo qof kasta wuxuu oran jiray walaalkii xitaa in adeerkii mid kasta friend buu oran jiray dadka friend baa neeb u dhijir subaxii dambe wixshilinkiis isku filnaysiin jiray cidna wax ma siin jirin aniga cidna xooga baan kaygaan cunaya buu dhijiriyo cidna xuma siinay subaxii doo maqaaxi mid uu ka shaha aroorti waxaan idin sheegay baro friends waxa idin sheegaya friend shaahi saaka igu dambeeyay waxaan haystay wakaas wixii ka dambeeyay waa dhimanay anigu aqalku tagay uu isdaldalay xarig buu qoorta gashaday in la iimaankiisa baan kaare kaga dhacday marka faarax been tirsadeen ha noqonino waxaan inta isku dhufato xisaabo iyo bakhaaradan iyo lacagahana is oranayn waa ku dhex jiraysaa weligaay hal mar waa markab ka adeegi kara aduu rabe صدقات يا ديقدي وحبحنت إن لجود داله وأسبابها مهم كأ يقفك كهجاجيو بشارو
bulshoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada